رمضان مبارك برنامجka Adoomadii Wanaagsanaa qisada saddexaad aan ku soo qaadanayna waa qisadii cajiibka ahayd dhaxmartay Kaliimullah Nabi Muuse calayhi salaam iyo adoonkii wanaagsanaa Al-Khidr calayhi salaam ku soo dhawaada qisadeena maanta Quraanka Kariimku waa mucjiso waxaana laga doonayaa in badan inaan aqrino fahanno ka dhigano hoggaankeena nolosha qisooyinka iyo tusaalooyinka adoomadii wanaagsanaa oo uu ka hadlay Quraanka Kariimka waxaa wanaagsan in badan inaan duruus badan ka qaadano kuna dayano wadadii wanaagsaneed oo ay mareen adoomadaas wanaagsanaa maalmaha ka mid ah ayaa Kaliimullah Nabi Muuse calayhi salaam istaagay isagoo u khudbaynaya reer Bani Israa'iil markaas ayaa mid ka mid ah weydiiyay yaa cilmi badan arlada oo dhan markaas ayuu dhahay Nabi Muuse calayhi aniga ayaa cilmi badan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa canaantay Nabi Muuse calayhi salaam waxaana lagu dhahay waxaa jiro adoon wanaagsan adiga ka cilmi badan wuxuuna joogaa meeshay labada badood iska galaan Nabi Muuse calayhi salaam ayaa weydiiyay Allah subhanahu wa ta'ala sida uu ku gaari lahaa wala kulmi lahaa adoonkaas wanaagsan Allah azza wa jalla ayaa Muuse amray inuu baxo horeyna u qaato kaluun oo uu ku rido dambiil meesha uu kaga lumo kaluunka ayuu ku sugan yahay adoonkii wanaagsanaa Khidr calayhi salaam Nabi Muuse calayhi salaam wuu baxay wuxuuna ka xistay adoonkiisa la oran jiray Yusha ibn Nun in muddo ah markay safarkooda sii wateen waxa ay gaareen dhagaxii markaas ayay gamceen seexdeen kaluunkii wuxuu ka baxay dambiishii wax uuna ku cararay badda markaas ay safarkooda sii wateen inta habeenka ka dhinneed markii la gaaray maalintii xigtay Nabi Muuse calayhi salaam ayaa dareemay daal badan iyo gaajo markaas ayuu Yusha ku yiri ina sii cunadeena Yusha ayaa yiri waxaan ku soo ilaaway kaluunkii dhagaxii aan soo marnay waxaan rabay inaan kuu sheego balse waxa ay ilowsiiyay sheedaan markaas ay dib u soo noqdeen iyagoo raadkooda hore raacayo markay imaadeen dhagaxii waxay arkeen nin huwan maryo suuban markaas ayuu Nabi Muuse calayhi salaam salaamay ninkii wuxuuna ahaa Khidr calayhi salaam ninkii saalix ahaa Khidr wuxuu yiri sidee baan dhulkiina nabad ugu soo dabaali karaa wuxuu yiri Nabi Muuse waxaan ahay Muuse reer Bani Israa'iil waxaan kugu imid inaad i bartid wixii lagu baray oo ah xukun toosan waxaan doonayaa inaad wuxuu eebo ku baray wax iga barto Al-Khidr Allah kana naqday wuu aqbalay inuu Nabi Muuse calayhi salaam raaco oo wax ka barto balse wuxuu dhahay shardi in uusan weydiin wax kasta oo Al-Khidr sameeyo Nabi Muuse ilaa uu isaga kaga waramo Nabi Muuse calayhi salaam wuu aqbalay shardigaas isagoo ixtiraamaya macalinkiisa wuxuuna raaciyay waxaad iga heli doontaa insha Allah samir mana kugu caasin doono arin kasta markaas Nabi Muuse calayhi salaam iyo Khidr calayhi salaam ayaa israaceen iyagoo agmaraya xeebta ayay arkeen doon waxay dhaheen nasi qaada dadkii doonta lahaa ayaa gartay adoonkii wanaagsanaa Khidr markaas ayay dhaheen waxaan idinku qaadaynaa lacag la'aan intay doonta saarnaayeen waxay timid shimbir waxayna ku degtay qarka doonta waxay laba jeer kabatay biyaha badda markaas ayuu Khidr عليه السلام يري علمي وعلمي marka loo eego cilmiga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu la mid yahay inta shibirkana badda ka cabtay ayuu la mid yahay cilmigeena kadib Al-Khidr adoonkii wanaagsanaa ayaa doontii lacag la'aanta ku qaaday alwaax ka mid ah ka jeexay kana saaray Nabi Muuse calayhi salaam oo yaaban ayaa yiri dad lacag la'aan nagu qaadeen miyaad doontooda alwaax ka saartay oo ka goysay inaad maashayso doontooda miyaad rabtaa waxaad fashay wax aad u xun Khidr ayaa ku yiri miyaanan ku dhihin waxa ay weydiinin miyaanan ku dhihin inaan weligaa ku samri karin Nabi Muuse ayaa ku jawaabay awood waan u leeyahay inaan samro waan hilmaamay ana igu cunaysan arinkeyga markaas ayay ka soo degeen doontii oo ay xeebta ku sii socdeen kadib waxay arkeen wiil la ciyaarayo saaxiibadiis markaas ayuu Khidr calayhi salaam wiilkii madaxa ka qabtay kadib madaxa ayuu ka gooyay wuuna dilay wiilkii Nabi Muuse calayhi salaam ayaa yiri ma waxaad dishay naf daahir ah sabab la'aan waxaad samaysay wax aad u xun Al-Khidr ayaa mar labaad xasuusiyay Nabi Muuse wuxuuna yiri miyaanan ku sheegin inaan weligaa igu samri karin Nabi Muuse calayhi salaam ayaa yiri dibdam wax ku weydiin maayo wala cudur daartay way sii socdeen ilaa ay soo gaareen tuulo waxay ka codsadeen dadka deganaa tuuladaas in la marti qaado dadkii tuulada ayaa diiday inay marti qaadaan cunno siiyaan Khidr calayhi salaam iyo Muuse calayhi salaam Al-Khidr ayaa arkay derbi oo dumaya markaas buu bilaabay inuu hagaajiyo oo dhiso derbigaas si uu ugu hortago dhicitaankiisa dadkii tuulada ma uusan weydiin wax mushaar ah ama cuno ah in lagu siiyo shaqada uu qabtay markaas ayaa Nabi Muuse calayhi salaam la yaabay ficilkiisa wuxuuna yiri Nabi Muuse qoom ayaan u iimaanay oo aan naqoodin diidayna inay namarta galiyaan miya cadaalad ahayn in lagu weydiiyo lacagta shaqada aad qabatay ama ugu yaraan inaad cuno ku weydiisato shaqada quruxda badneed oo aad qabatay Al-Khidr calayhi salaam ayaa ugu jawaabay waxa la gaaray waqtigii kala tagayna wixii dhacay kadib dhacdooyinka iyo xaqiiqooyinka ayaa cadeeyay inaanan awood u lahayn inaad isii raacdo iyada oo taas jirto waxaan kuu sheegi doonaa wax walba aan sameeyay fasirkooda
kadib Khadir calayhi salaam waxa uu bilaabay Nabi Muuse calayhi salaam inuu aaga sheekeeyo sheekadii xikmad iyo duruusta ku jirtay inuu aaga waramo wax kasta uu sameeyey. midda koowaad, doontii aan duleeliyey alwaaxa ka saaray. waxaan sidaas u sameeyey doontaas waxaa lahaa dad masaakiin ah, waxaana jira boqor daalim ah oo burcadbad ah, wuxuuna qaadan jiray boqorkaas doontii wanaagsan oo aan cilad lahayn, wuuna ka tegi jiray doontii cilad leh ama waxyeelo badan leh. sidaas ayaan u duleeliyey doonta si uusan kaga qaadan doontooda dadkaas masaakiinta ah. fasiraadda labaad, wiilka aan dilay waalidkiisa waxay ahaayeen mu'miniin, isagana gaal ayuu ahaa. waxaan ka cabsaday in uu fidneeyo waalidkiisa ugana jeediyo iimaanka eebe, maxaa yeelay kalgacalka aabbuhu wuxuu mararka qaar keenaa wax aan la mahdin aakhirka, waxayna ku riixi kartaa qofka mu'minka ah inuu ka tago iimaankiisa. fasiraadda saddexaad, dhismaha gidaarka derbiga ee aan dhisay, waxaa derbigaas hoostiisa ku jiray hanti, waxaana lahayd hantidaas 2 wiil agoon ah oo aad u da'yar. gidaarkaas hadduu dumo, wiilashaas intay qaangaarin waxaa lumi lahayd hantidooda, awoodna uma lahaan lahayn inay xuquuqdooda difaacdaan. ujeeddada loo aasayna waxay ahayd in la daryeelo xaqa ay labadaas wiil oo agoonka ah ay ku leeyihiin lacagtan si ay aabbahooda xaqa ah u sharafaan. ugu dambayn, haddii aad halkanala soo gaartay aad u mahadsan tahay. barnaamijka addoommadii wanaagsanaa xalqooyinkiisa soo socdo si aysan kuu dhaafin nagu soo bir subscribe saar janaalkeena Xikmaso. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, la wadaag muuqaalkan asxaabtaada, sheer dheh. mahadsanid.